waxgarad cuqaal siyaasiyiin ay ka mid yihiin wasiir dowlihii hore wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Riiraac gudoomiyaha komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa siyaasi afshaqo oo ka soo jeeda deegaanka Qorlugud ayaa beeniyay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo salka ku hayay deegaanka Qorlugud ay ka samaysatay jabhad waxaanay waxba kama jiraan ku tilmaamin in deegaanada Qorlugud aanay wax jabhada haba yaraatee aanay ka jirin waxaana yiraahdeen la sheegay ama la faafiyay ama maalmahan la isla dhexmarayay oo ahaa mid aan saliya raatoona lahayn deegaankanu wuxuu yahay ama Somaliland oo ogtahay laf dhabarta Somaliland waana ahaan doona insha Allah hadeerna waa yahay kama suuroodo ninkii ama ku farxaya ama dhigihiisa gashay oo deegaankana ama Somaliland ka hor yimi ama ciidan jira ama wax kale jiraan waxaan leenahay dhigaha ka saar ma jirto arintaasu waxa de laga dhigtay ama dadku media geliyaan waxay ahayd ciidan yar oo kooban oo ciidan qaran ah oo ahaan jiray oo sabab kasta ciidanka ha kaga soo baxaan oo deegaankooda ha ku yimaadaan oo inama wada deegaanka markii ay cabashooyin gudbiyeen ama tagtageen xafiisyona ay wax badan u suuroobi waayeen marka mar waxaan oran karaa ex ciidan gadooday oo yaro meel isugu tagay oo gadooday marna waxaan oran karaa niman tusayay maaragtay laakiin inamadaas waxay diyaar u ahaayeen inay Somaliland difaacaan Somaliland ku dhaadanayeen waxay la tahay qof kasta aqli waa garan karaa in reer Somaliland oo si kastaba ay doonayeen ciidankiisa ku noqdo inaanu qarankiisa waxyeello ku ahayn inaanu marnaba ugu talagelin wax ka dhacaan taana waxa weeyaan inamadii waanu ka qancinay waanu ka qancinay wixii ay ka cabanayeen wixii ay ku qaldanaayeen iyo waxay ku saxnaayeen waan runtii u sheegnay waxaan leeyahay in Somaliland oo kala go'go'da ama beeshan oo jabhad lagu shaambadeeyo ka kacbaan u leenahay waxaas waxba kama jiraan beel noqon doonto maaha beel runtii qarankan ee halbowlaa weeye waxa ay tirsatay beeshu runtii halka ay lahayd iyo cabashada dawladda aan ka mid ka ahay runtii diwaan badbad doonaa oo cid leh baynu runtii kala xaajoon doonaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay waa ninkii u fadhiyo ka kac beeshani beel jabhad lagu shaambadeeyo ama magaxun oo runtii aynan geeyin lagu yiraahdo waa beel ka weyn waa beel runtii aan u qalmin in binaadam way u ahayd oo cabasho way jirtaa aan u qalmin waxa la marmarinayo cidii marinaysay ama cidii runtii anfac ka dhiganaysay waxaan leeyahay anfacaas ma jiro mana jiri doono iyadoo aan filayo inaan bariyahan iman deegaankan aan maanta joogo waxa inta ay soo kalifay markii ay dhagahayga iyo meediyaha aan ka maqlay wax aanan filayn weligay inaan ka maqlay horena uga maqal dibna aanan uga maqlay doonin aan islahaa raggii kabta wadaagta aanu lahayn ilaahan waa taa ayay i kaliftay inaan soo taabto gunta iyo salka arrinka hadda waxaan caddaynayaa inaanay waxaasu jirin meediyaha la geliyey sal iyo raatoona aanaan ku lahayn ma nihin ciddii looga baqayey ma nihin ciddii looga shakiyeyey qarannimada iyo jiritaanka Somaliland waxay ahaayeen dhalinyaro iska cadhootay ciidamada qaranka soo baxay runtii wax yar tirsaday taliyayaashooda ka tirsaday bay ahaayeen arinta maxay ahayd toy waanu dhamaynay hadaan nahay xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha waftiga nooga timi maxay ahayd toy Hargeysa iyo kuwa Burcaba arinta waanu dhamaynay intii website-ka lagu qoray meelo badan gaadhay dad badan oo cadow ku farxayeen la lahaa Qorlugud waxa ka dilaacday jabhad waxaanu halka ka cadeynaynaa inaan waxba ka jirin oo wixii ka jiray ay ahaayeen inama wax tawday odayaashoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo mas'uuliyiintoodiina maqlay arintaana la soo afjaray ka dhigo waxaan aad ugu faraxsanahay
in aan halkan maanta wax dhibaato ah iyo wax daana ah iyo wax xumaan ah iyo wax barnaamij ah cid kasta oo wax faafinaysa ama wax sheegaysay inaan hawshaas waxba aanay jirin ee ay ku dhamaatay salam iyo sulxi ku dhamaatay iyo wanaag wixii hawshii halkan ka jirtay oo ahayd adigu ilama maganaysaa tabasho iyo dadku bini'aadamku waxbuu tabdaa tabashadiina ay dhamaatay waxaanay ka hadli doonaa ciddii iga dambaysa ama waxaanu aan muxuu ahay maanta aanu sii daynaynaa warbaahinta ku saabsan wixii la dhigay muxuu ahay baraa bulshada oo aanu beenaynayno oo la yidhi qoorlugu degmada qurud waxa ka dilaacday jabhad waxaanu leenahay warkaasu waa been waxaanu caddaynaynaa siyaasiyiinta odayaasha cuqaasha waxgaradka xildhibaanadii yaanu ku joognaa warkaa baxay been weeye waxay ahaan inamo ciidanka qaranka ka tirsanaa dabeedna xukun aan cadaalad ahayn ku dhacdo ciidamadii lagaga saaray isagoo aan wax dembiye lahayn inamadaasaa cadhooday oo hawshaa sameeyey taasaa hadal beena laga diray hadalka beenta iyo runtaana waxa duulaadka beentaa waxgaradkii iyo siyaasiyiintii waa la isugu yimi hadalkii muxuu ahaayey beentaha baanu caawa caddaynayna aanu ka hadlaynaa hadalkaasu waa been buu ahaa maxamuud cabdiraxmaan maxamuud fantastic telefishinka caalamiga ee sahan qorolugud